asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo xogta cayaaraha qodobada ugu waaweyn warkeena waxaa ka mid ah xulka qaranka Brazil oo markoodii sagaalaad ku guulaystay Copa America, xulka qaranka gabdhaha ee dalka Mareykanka oo markoodii afraad ku guulaystay koobka adduunka gabdhaha Faransiiska lagu soo gabagabeeyey, kooxda Inter Milan oo diyaar u ah inay iibiso Mauro Icardi, Delight oo la xaqiijiyay in uu heshiis rasmi ah uu la galay kooxda kubadda cagta Juventus, ciyaaryahanka reer Talyaani El Shaarawy oo ku biiray koox Shiineesa, iyo natiijooyinkii kulamadii markaasi koobka qaramada qaaradda Afrika oo dalka Masar ka soconaya. Sidoo kale macalinka xulka qaranka dalka Brazil oo sheegay in Leo Messi u baahan yahay tixgelin gaar ah in la siiyo. qodobadaasi wixii kale nagu soo kordhaa ayaa warkeena idinkugu soo gudbin doonaa, balse haddaad ku cusub tahay janalkeena subscribe inoo saar. aynu ku horeyno xulka qaranka dalka Brazil ayaa habeennimadii xalay ahayd waxay ku guulaysteen koobkoodii sagaalaad ee Copa America kadib markii xulka Peru ay isugu hor yimaadeen kulan final ahaa oo Copa America markaasi ay ku tartamayeen. qaybtii hore markii 15 daqiiqo ay maraysay ayaa ciyaaryahanka Everton lagu magacaabo xulka qaranka Brazil u ciyaara baas wanaagsan uu ka helay Gabriel Jesus markaasi shabaqa dhexdhigay 1-0 ayaan markaa lagu hogaamiyey. sidoo kale isla qaybta hore ee markaasi ciyaarta 44 daqiiqo markii ay ciyaartu maraysay ayaa Gilo Paulo Guerrero ninka la yiraahdo ee gooldhaliyahooda ee Peru hal ka dhigay ama 1-1 ka dhigay. ciyaarta iyadoo meel wanaagsan maraysa oo markaa qaybtay hore lagu guda jiro ayaa waxa gool mar kale dhaliyay Gabriel Jesus oo markaasi markii hore gooshii hore isagu caawiyey 2-1 ayuu markaa ka dhigay. Jesus Rosa ayaa la siiyey markii dambe isagu oo markaa aad ugu xumaaday arrinta oo markaasi uu hinjabsaday. sidoo kale gool rigoore ayaa waxaa la siiyey xulka qaranka Brazil waxaana u saxeeyay ciyaaryahanka Everton u ciyaara Richardson lagu magacaabo. ciyaarta ayaa waxay ku soo ilaatay 3-1. Brazil ayaa koobkan waxa markaasi Copa America ay ku guulaysatay 9 jeer oo markan ay u noqonayso markii sagaalaad. waxay hore ugu soo guulaystay 8 kii ugu dambeeyayna wadankeeda ayaa lagu qabtay oo waa ay ku guulaysteen. waxaan rajo wanaagsan soo galaysa xulka Brazil oo waqtidii ugu dambeeyay markaasi aad ugu xumaa ku guulaysiga koobabka waaweyn. 2007 ayaa ugu dambeysay inay ku guulaystaan koobkan, muddo kadib ay ku guulaysteen. dhinaca kalena xulka qaranka ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa ay xalay ku guulaysteen koobka markaasi adduunka oo markaa lagu qabtay dalka Faransiiska, gaar ahaan magaalada Paris ayaa habeennimadii xalay lagu soo gabagabeeyey. waxaana finalka isku soo haray labada xul ee gabdhaha Mareykanka iyo xulka qaranka dalka Holland. ciyaartaasi ayaa waxa ku soo ilaatay oo markaa ku soo gabagabowday 2-1 oo markaasi ku adkaadeen xulka qaranka ee Mareykanka. labada gool gabdhaha markaasi u kala dhaliyay ayaa waxay kala ahaayeen gabadha Trump ay aad soo kacsan yihiin ee nambarka 15 nambarka 15 u xirata xulka qaranka Mareykanka iyo gabadha 16 u xirata ayaa labada gool markaasi u kala dhaliyeen. dhinaca kalena Inter Milan ayaa waxay diyaar u tahay inay iska iibiso ciyaaryahan Mauro Icardi oo markaa kooxda kubadda cagta Inter Milan u ciyaara. ciyaaryahankan reer Argentina ayaa waxaa la sheegay inuu imika suuqa yaalo. agaasimaha kooxda Inter Milan Pepe Morata ninka lagu magacaabo ayaa waxa uu xaqiijiyay in ay koox kasta ay doonayso ciyaaryahankan kala xaajoon doonaan oo suuqa uu yaalo ciyaaryahankan oo kooxdi doonto markaas ay iibsan karto. Napoli ayaa kamid ah kooxda sida weyn ciyaaryahankan u doonaysa iyo kooxda kubadda cagta Manchester United oo markaa la leeyahay Romelu Lukaku ayay markaas isdhaafsan doonaan, inkastoo hore ay u soo diideen arrintan. Sky Sport ayaa saaka daabacaysa in Pepe Morata uu markaasi oggolaaday in ciyaaryahankan ay ka
ka iibiyaan kooxdii markaasi diyaar u ah. Juventus ayaa sidoo kale la leeyahay in sanadkan ama xilli ciyaareedkan furmi doono Icardi uu ka garab ciyaari doono ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo ay ciyaartooyda aad u jecel yihiin inay la dheelaan maadaama nin hore u soo shaqaystay uu yahay ninkan. Ciyaaryahan El Shaarawy oo isagana reer Brazil ayaa waxaa la leeyahay waxa uu ku biiray kooxda Shanghai lagu magacaabo dalkaasi China ka dhisan. Ciyaaryahankan ayaa isagoo 26 sano jir ah kooxda Rome ku soo biiray 2016 waxaan la sheegayaa in 18 milyan imika lagu qaatay ciyaaryahankan oo ku biiray kooxda kubadda cagta Shanghai oo dalkaasi Shiinaha ka dhisan. Kooxda Watford ayaa ka mid ahayd kooxda sida weyn markaasi u doonaysay ciyaaryahankan inkastoo isku koox noqon doonaan ciyaaryahankii hore ee kooxda Watford ninka lagu magacaabo Igalo. dhinaca kalena Delight ayaa waxaa la xaqiijiyay inuu si rasmi ah heshiis ula gaaray kooxda Juventus iyadoo hore loo soo sheegayay in khilaaf yimika oo markaa burburiyay heshiiskii la sheegi jiray ama la sheegayay labadan dhinac inay kala gaareen ay Juventus iyo ciyaaryahan Delight 20 jirkan reer Holland ee daafaca kooxda Ajax kabtankana ayaa saaka jirida lagu magacaabo The Telegraph waxay sheegaysaa in wakiilka ciyaaryahankaasi ninka lagu magacaabo Mino Raiola uu markaasi xaqiijiyay in ciyaaryahankan ee kooxda Juventus ay heshiis shakhsiyadeed wada gaareen oo ciyaaryahankan ay u badan tahay in uu markaasi kooxdaasi uu ka mid yahay ciyaartooydeeda imikaba si rasmi loo xaqiijin karo laakiin waa wakiilka ayaa arrintaasi sheegay iyo The Telegraph jaridda arrintaasi saaka ay wax ka qortay. Isla arrimaha sportiga ayaan ku guda jirnay macalinka xulka qaranka Brazil Tite ninka lagu magacaabo ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Leo Messi loo baahan yahay in markaasi tixgelin gaar ah la siiyo. Messi oo corruption iyo wax isdabamarin ku eedeeyay xiriirka Copa America iyo Latin America ayaa waxaa markaasi leeyahay Tite macalinka reer Brazil waxa uu aad u tixgelinayaa ciyaaryahan Messi waa nin 5 jeer ku guuleystay Ballon d'Or champion badan haysta oo horyaalo badan ku guuleystay 5 jeer ku guuleystay kabta dahabka marka waxa la leeyahay waxa uu yiri macalin Tite ciyaaryahankan in la tixgeliyo waa ay markaasi mudan tahay ayuu leeyahay. waagaage markan natiijooyinka ayaan idin soo gudbinaynaa xalay waxa isugu hor yimid koobka finalka Copa America Brazil iyo Peru 3 ayaa marka Brazil ku adkaatay koobkii Brazil ayaa qaaday Mareykanka iyo Netherlands gabdhooda koobka adduunka Francisco lagu soo gabagabay finalkiisa ay ciyaareen 2-1 ayaa marka waxa ku adkaaday Mareykanka. dhinaca kale koobka qaramada qaaradda Afrika oo meel wanaagsan maray isagana Madagascar iyo DR Congo. Madagascar ayaa soo baxday oo 8aad u soo gudubtay Rigorial. Algeria iyo Guinea waxa markaasi soo adkaaday Algeria. Guinea waa laga adkaaday.